إلهي يا إيجاسو بحشي عواه رانو كوجي إذا كجرنا ديارة تمضي نرى إنه شدي إنجيل سلوى جيزو بقى حي أنا اللي بقى ما هلو يالي أنا ما يوجد صباح دينا وحان كساق بسنة وأنا اللي إلى لا يقول ما تنبري قرر لا يمسينا قرية إنيسيين أسد إحنا مؤنجة سوق قوستي إيه الحس عاد قرق على قاعدة ولا جالسة قرق ساس على قاعدة وحان هاي أنك نمان كاس منهن من يكو يماغ أتجي منهن من يطلق صدين حتى يكو صادون تاني ليمدين وحان هاي نمان تلكو لبحي يكون وحيرهن قبيل أنا نين لهاي نين لغا حيران لفرو مايو وحوال بوي هاي دونا نين لهاي نواسيسا ورديسيا ساس أوغير سيدات قريسين بأنوك هذا لما عنقو هذا لما بلود عمل دقمنا جوكتين نقول جرت معي لحدينا كليتود وحنا وضيالا قبيل كسو حسين سيدات بلودنا ننكو بدنو اسجوغو نمان هذا هرتقو سباها ليكو قاربيهن نمو وحانا هاي أنا قلنا الله سيجرين سيدات بلود عمل ماشي جوغان هاي نما فكركو كو أتكادا ما إيهن لكن نمان كور رمي كرميهينو waxay iyo loo sheego niman naga aqbala ma ahayn dawladuna waa ogtaa nimanka maxaa faa'iido kugu jira marka galaysa hal faa'iido igu jira waxa ku faa'iido igu jira qabiilkayga inaan ninkay xiraan anigu inuu taga iraan ninka xal lagu haystaa shariicada islaamka ma qabtaa wax lagu haysto in la joogan rag gaaraya ilaa 8 ee ka yimid cadawgii qawaariijta al-shabaab ragaan sidoo sheegay gudoomiyaha degmada waxay iskugu jiraan rag dadka iyo u dhaxeeyay shabaab iyo rag asgar oo qoray heestay oo dagaalamay waxaan ugu baaqaynaa kuwa dhiman inay sida ragaan isku soo dhiibaayeen isku soo dhiibaan ee dawladoodu ku soo biiraan wali toobadu waa furan tahay hadii laakiin ay soo dhiibaayaan hadhowtu waxa jirayso xilli ay xeerif fandaalka la dhaceen oo aan warkooda markin oo la maqli doonin marka anagoo filinayna amarka madaxweynaha ragaan way soo dhiibeen waxa waaye dawladooda isku soo dhiibeen si wanaagsan loo dhaqmay akhyaartan halkan laga warbixiyay oo meeshan dhinacayga taagan oo isugu jira odayaasha iyo rag kale oo dhalinyaro oo sida la sheegay gudoomiyaha degmadu oo yiri waa laga warqabay shaqay nala wadeen haddana markay dawladoodii iyo ciidankoodii arkeen gartay inay qaybta ay ku leeyihiin waajibaadkan socda inay ka qayb qaataan gartayna ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahayana idin waafajiyay maxaa yeelay kuwaas haddii ay la sii joogi lahaayeen waxa dhici lahayd waa dadka yacni tawfiiq xumo ilaahu naga koriyaa la yidhaah tawfiiq xumo dhici lahayd marka ilaahay ayaga waa ka koriyey ilaahaasaan marka aan ku xamdinaynaa maaragtay garashadaas siiyey waxaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeedba u sheegaynaa raggaasi waa yimideen